mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya badbaado qaran oo maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kulan isugu yimid ayaa waxa ay ku soo dhaweeyeen go'aankii uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uga laabtay xubnaha golihiisa wasiirada cusub ee soo dhisay 12 bishan. waxaa dhanka kale xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay ugu baaqeen qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira in ay gacmaha kala baxaan siyaasadda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay tilmaameen in ay qayb ka yihiin khalkhalka madaxda sare ee qaranka. marka ugu horeysa golaha badbaadada qaranka waxay soo dhaweynayaan go'aankii ra'iisul wasaare Cumar Cabshiid uu shalay dib ugu noqday golihii wasiiradii ee uu soo magacaabay 12 bishan. sidaas la mid ah golaha badbaadada qaranka waxa uu hambalyeeyaa dhammaan xildhibaanadii qaranka ee muujiyay mas'uuliyad iyo la xisaabtan dhab ah baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed inuu xukuumadda uu soo dhisay 12 bishan ra'iisul wasaare Cumar Cabdishiid Cali Sharmaarke codka kalsoonida maaragtay ay u diido cabsidii laga qabay ayuu ra'iisul wasaaruhu habeen hore wuxuu soo diray warqad uu guddoonka u qorayo ahay inuu la laabtay kana laabtay magacaabidii uu sameeyay 12 taasoo uu arkayay inuusan ka helaynin cod kalsooniya baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed iyo golaha shacabka iyo shacbiga Soomaaliyeed. sidaa daraadeed dad badan oo Soomaaliyeed ah waxay isla dhaxmarayaan waa taatig la dheelay iyo hawsha waa si kala loo rogay iyo waxaas taas baan rabnaa inaan u sheegno shacbiga inaan joogno wali aan taagannahay mowqifka hore aan taagannahay wax iska kaana bedelayana uusan jirin waxaan ku diidannahayna aan hore u sheegnay haddaan nahay kutladda badbaadinta qaranka Soomaaliyeed. madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha South West saddexda gobol koonfur galbeed waxaan uga digaynaa haddaan nahay xildhibaanada badbaadada qaranka inay faragelinta ka daayaan oo ay ku ekaadaan maamuladooda ay maaragtay nabadeeyaan oo dadka isu keenaan oo wanaag ka shaqeeyaan yayna samaynin inay shacabka Soomaaliyeed isku dir ka sameeyaan. arrintan waa arrintan weli laga sharqamin laakiin maanta shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo dadka gobolada degan baa waxaan u bayaanayaa iyo maamulada kale inay faragelinta ugu weyn iyo dhibaatada ka taagan filla Soomaaliya ka taagan inay maamuladaas qayb ka yihiin oo waliba aan ognay in lacag ku bixiyaan. 16 bishan ayaa ahayd markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu si rasmi ah u sheegay inuu kala diray golihii wasiirada ee uu soo dhisay 12 bishan iyadoona arrintan ay noqonayso markii ugu horeysay ee taariikhda inta la og yahay golo wasiiro oo inta la soo magacaabo la kala diro ka hor intii aan la horgelin baarlamaanka.